السلام عليكم waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed magaceyguna waa Amran Xalane waxaan ahay hooyo dhiban oo gabadheedii ay ka maqan tahay waxaan iga maqan gabar yar oo aan qaan gaarin xarun ay wax ka baranaysay ayaa waxa ka kaxeeyay gabdho kale waxay geeyeen waxaan ku yiraahdaa gabdhihii waxaan saan u baareen waxaan soo ogaanay in gabdhihii ay u gacan galiyeen ciidamada madaxtooyada ilaalada madaxtooyada markaan soo ogaanay waxaan u nimid CID-da oo aan u sheegnay arrinteeni markaan u sheegnay waxay CID na dhahan waa idin baadigoobeena gabadhiini marka sidii gabadhii loo raadinay wax CID iska daba marayn iyo iska daba wareeg markaan ku daalnay xildhibaano waa u geynay dad kale sarsare waa u geynay nimankii marka ogaanay in ciidamadaas oo ilaalada oo madaxtooyada ay yihiin waa la soo xiray maxkamadii aan tagnay ciidamka qalabka sida waa la soo xiray labadii nin mid wuxuu ahaa mid sawirka gabadha intuu soo tuuray yiri gabadhiini ma tahay ha $2,000 haliisiya gabadhi meel baan ku ogahay mid kalena wuxuu ahaa midkii gabadhayda lambar 4 gaari uga qaaday gurigiisii geeyay marka gabdhihii gabadhayda kaxeeyay laba ka mid ah ay CID soo xireen labadiina damaanad ayay ku sii daayeen marka CID waxaa dhacday markaan iri CID gabdhihii maxaa damaanad ugu sii dayseen xog ayaan ka helnay gabdhihii damaanad adagaan ku sii daynay gabadhaadiina waan ku raadinayna ay ku dhahan waxaa dhacday marka gabadhaydii waxayna tuseen CID message ay u soo dirtay gabdhihii ay sii daayeen gabar ka mid ah gabadheeda Ingiriis waxay ku soo qoraysaa heblaayo ninkii aad igu daba dartay inuu kufsado isku day marka CID waxaan ku islaanimo ma jirto miya Soomaalinimo ma jirto miya muslimatiin miya gabadheeda u jeedin message-da ay soo diraysa leeyahay qol jingada ku jirta gabadheeda la ii raadiyo waa raadinayna gabadhaadii marka waxaa dhacday in xataa mid ka mid ah xeer ilaaliyay maxkamadda khayr Allah si uu nacaawiyay nala yimid CID-da uu yiri maxaa idinka qaldan walaalayaal dad islaam Soomaaliyiin gabadhan maxaa u meermeerinaysan arrinteedu wax waad ka ogtihiin fariimii xataa ay isdhaafsadeen gabadhi kaana ama gabadha damaanada aad ku sii dayseen oo gabadha fariimahan ay u soo dirtay kaana waay nimankii way xiran yihiin wixii waa ku cad yihiin gabdhahaas u baahana may waa keenayna 3 wiig hana 3 bir hana la siiyo 3 bir waxay dhashay 3 wiig marka aniga xaal mastuur wax waa ku soo waay maxaan ku yiraahdaa sharci wax waan ku soo waay gabadheeda qurbahan ka keen waxaan islaa wadankaaga sharci iyo waxaad kala dambeyn baa ka jirto wax baa ku helaysaa wax aan ku helay midna ma jirto dawladii wadanka ka talinaysa ayaan xaq darro kala kulmay cadaalad darro kala kulmay waxaan dad muslimiinta ah Soomaalida ka codsanayaa in gabadheydii la ii keeno khaasatan madaxweynaha farmaajo waxaan ka codsanayaa maadaama ciidamada madaxtooyada ay yihiin wax gabadheeda xoog ku haysta lacagna soo weydiinaya ma burcad badeeda gabadheeda marka la leeyahay $2,000 hala keen 2,000 xataa anagoo u ogolo dhahan waa idin siinana gabadhi keena waxaa dhacday inay dhaheen gabadhi haddana ma naqaan meel kuma ogin marka waxaan dawladda sharafta la ka codsanayaa khaasatan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii wax ka qaban karta kiiskan inay gabadheydii nolol iyo geeri midna kuma hayo in la kufsado in la dilay in badda lagu rido warka ma hayo haddii islaamnimo iyo dadnimo ay jirto gabadheydii ayaan u baahna sababta maanta in shareerka aan u xirto waxay tahay cabsi darteed waayo markaan ogaanay ciidamada ilaalada madaxweynaha inay kiiskii faraha la gashay midkii sawirka soo tuuray mid ka mid ah oo gaashaan la dhaxaa iyo hanjaba wuxuu igu yiri haddaad arrinteeda warbaahinta la tagtaan aad la tagtid waa ku dilayaa marka waxaan haynaa cadeemo badan waxaan hayaa codad waxaan hayaa video waxaan hayaa warqadihii maxkamadda iyo intii kiiskaygi uu soo maro dhan ayaan hayaa marka wax walba cadeyn ayaan u haynaa marka dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa aniga hadda wixii dhan in la soo bandhigo raali kama iig marka u horeysa waxaan rabaa dawladda inay arrintan wax ka qabato waxaan hay aniga gabadha maqan ayeeyadeed gabadha dalka la keenay waxaa la rabay dadkeeda iyo dalkeeda iyo dhaqanka Soomaalida inay barato waxaa dhacday meel ay quraan ka baranaysa in gabadha ka wadeen in ay gabdhihii la galeen musaska madaxtooyada sida la sheegay haddii aan dacwo tagnay oo aan tagnay CID-da 2 bilood ayay iska kaay daba wareejinaysay wax ay noo qabatana ma jiraan waxaan ka codsanayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya annagoo calanka hoostiisa joogno in gabadheeni 2 bilood wadanka dhexdiisa lagu haysto oo xoogna looga haysto ayaan u sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa in arrinta loo istaago inaan arrinta la yaraysan in gabadheeni geeriyo nolol meel lagu sheego ayaan ka codsanayaa dawladda u dhaaratay danta iyo dalka Soomaaliyeed ee kitaabka
gacanta u saartay arrintaas idinka idin sugaysaa waa inaad wax noo qabataan gabar baa naga maqan xanuunkeeday leedahay ummadii maqashaa ka naxaysa annagana hurdo iyo hoyaad waa beelnay sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa madaxda sharafta leh arrintaa inay soo farageliyaan oo ay wax noo qabtaan oo gabadha Nigeria noola mid un meel lagu sheego wabillahi